daawadayaal war degdeg oo naga soo gaadhay magaalada Hargeysa caawo xilli dambe ah ayaa wuxuu la sheegayaa in Awaaladayr fanaanka ka soo jeeda magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn in lagu xiray magaalada Hargeysa sababna markaasi looga dhigay in la rabo inuu u baxsado magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halkaas oo doonayo inuu heeso markaasi qadiyada beeshaasi dhulbahante oo kaga soo amaano iyo sidoo kale mowqifkiisa ku aadan arinta Somaliland haddaba daawadayaal xogo kala duwan ayaan helnay ayaa waxay sheegayaan in lagu xiray saldhigga dhexe magaalada Hargeysa ee Somaliland dhanka kala daawadayaal xogtan oo dad goobjoogayaal ku sugan magaalada Hargeysa ay nala soo wadaageen ayaa waxa la sheegay Awaaladayr oo doonaya inuu u baxo dhankaas iyo magaalada Buuhoodle kadibna uu ka soo galo magaalada Laascaanood ayaa waxa lagu qabtay controlka markaasi magaalada ee looga baxo dhankaas iyo gobolada bariga gaar ahaan magaalada Buuhoodle halkaas oo gaarigii lagala dagay sidaasna markaasi lagu xiray arin kale ayaa iyaguna sheegaya in basaasida markaasi fanaankan Awaaladayr ay ka qayb qaadatay fanaanadiisii hore ee uu qabi jiray Najma Nashaad haddaba daawadayaal arintaas si aan u xaqiiqsano dadyo fara badan ayaa social media saacadii ugu dambeeyay soo dhigay waxa kamid ah ninka lagu magacaabo Facebookerka markaasi Yacquub Siyaad ayaa waxa uu yiri qoraal uu soo qoray Awaaladayr waa fanaan reer Hargeysa ah balse waxa yaab leh in Arab oo abtiyaashiisa ay dhulbahante ahaan u xireen si loo yiraahdo wuxuu aadi lahaa dagaalka Laascaanood xataa qarankii caruurtii uu dhalay kama xishoonayo ayuu yiri Yacquub Siyaad oo kamid ah dadka saaidka caanka uga ah Facebook iyo aaladaha meediyaha haddaba arintan ayaa waxay salka ku haysaa dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ka gadaal kadib markii dadyoga ka soo jeeda deegaamadaasi gaar ahaan beesha dhulbahante ay indhaweytaba ka qulqulayeen magaalada Hargeysa ee Somaliland haddaba daawadayaal wixii war ka soo kordhaa Awaaladayr taloma la xukumi doona oo Muuse Biixi ma xukumi doona mise iska sii dayn doona wuxuu oran doona war meesha doontaba ka dhac bal wixii war ka soo kordha halkan ayaan dib u soo galin doonaa ee fadlan isha ku haya warbaahinta Hogol News oo soo saarta warar iyo sidoo kale dhacdooyinka ka dhaca caalamkan aan ku sugannahay aniguna waxaan ahay Cabduuli Nadaara fadlan waxaan idin codsanayaa YouTube-keena Hogol News iyo sidoo kale page-keena Cabduuli Nadaara YouTube-kana subscribe noo saartan page-kana follow iyo sidoo kale like waad ku mahadsantihiin fadlan waxaan idin codsanayaa YouTube-keena Hogol News iyo sidoo kale page-keena Cabduuli Nadaara YouTube-kana subscribe noo saartan page-kana follow iyo sidoo kale like waad ku mahadsantihiin fadlan waxaan idin codsanayaa YouTube-keena Hogol News iyo sidoo kale page-keena Cabduuli Nadaara YouTube-kana subscribe noo saartan page-kana follow iyo sidoo kale like waad ku mahadsantihiin fadlan waxaan idin codsanayaa YouTube-keena Hogol News iyo sidoo kale page-keena Cabduuli Nadaara YouTube-kana subscribe noo saartan page-kana follow iyo sidoo kale like waad ku mahadsantihiin